kulankana uu soo qabanqaabiyey muddooyinkii u dambeeyena ay ka shaqaynaysa safaarada Somaliland ee dalka Sweden ayaa intuu socday waxa shir gudoominaya safiirka Somaliland u fadhiya dalka Sweden Ambassador Zakariya Xasan Wacayse qaybna ay ka ahaayeen mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee Somaliland ee dalka Sweden ururka badda cas madaxda jaaliyadda Stockholm ururka qorayaasha iyo dalada guud ee jaaliyadda Somaliland ee wadanka Sweden waxaana lagu lafaguray sidii mid la yahay meel loo wada jeedo looguna diyaar garoobi lahaa xuska maalinta qaran ee 18 May oo fooday nagu soo haysa qaar ka mid ah ururadii iyo jaaliyadihii ka qayb galay shirkaasi ayaa baaq u diray shacabka Somaliland ee ku nool wadanka Sweden waxaan si wada jir u soo jeedinaa bulshada reer Somaliland ee ku dhaqan Stockholm iyo nawaaxigeeda in aanu soo bandhigi doono barnaamijyada ku taageerana qadiyadda Somaliland barnaamijyaasoo ku mudaysan 14 bishan oo ku beegan maalin Isniina la sugu iman doono Toriyadka ama Square-ka la yiraahdo min Toriyad oo ah barxad ku taala ka soo horjeedka baarlamaanka dalka Sweden waxaan ugu baaqanaa qof kasta oo muwaadin oo reer Somaliland oo jecel qadiyadda Somaliland inuu maalinkan la soo xoojiyo nagala soo qayb galo waxaanu dadka u sheegaynaa in dhammaan jaaliyadaha kala duwan ururada kala duwan ilaa safaaradda dalada guud dhammaantay aan u dhannahay barnaamijkan sida aad ka arki kartaan haddaba in ay joogaan dad badan lana doonayo in la si midaysan oo wada jir ah aanu u soo bandhigno qadiyadda Somaliland iyadoo waliba shucuur ku dheehan tahay muhiimadu waxay tahay in dhammaantiin soo wada baxdaan dadka shaqaynayana ay fasaxya sii qaataan hadda ciyaalka iyo xoog waxaan u gaawinayaa maamooyinka in ciyaalkooda soo kaxeeyaan say qadiyadan oo la qaataan oo wadankooda iyo u bartaan waxaan leeyahay dumarka xoog bay horta wax qadiyada xoog uga qaataan soo wada baxas waxaan ugu baaqay dhammaan shacabweynaha reer Somaliland ku nool dalka Sweden inay ka soo qayb galaan 14 bisha maalintaas aan u aastaynay maalintii Somaliland oo soo banaabaxaynay haddaan nahay ururka qorayaasha Somaliland ee Sweden waxaan u leenahay dhammaan shacbiga Somaliland ee degan ee Sweden inay ka soo qayb galaan maalintaas maalinta qiimaha weyn inuu fadhiyo dhamaanteenba saynu u muujinaysan Orobo sheegay wadanimadeena shucuurta wadanimadeena si markaa dunyada inuu u tusno inaynu nahay dal jira maanta waxaan halkan taaganahay waxa weeye shista oo ah runtii meesha aan doonayno maalinta ku xigta ee aan qaban doono 18 May oo aanu dabaaldegi doono 14 aan halkan ku qaban doono barnaamij weyn wuxuu dhici doonaa runtii barnaamijkaas laba qaybood buu ahaan doonaa qaybta maalinimada ee Isniinta ah oo aan isugu imaan doono baarlamaanka hortiisa oo aan dadka doonayno inaan ku wacyi gelino meeshaas oo noqon doonta meesha la yiraahdo min Toriyad oo ah meeshan sanadka hore aan ku qabanay sanadkan aan ku qaban doono habeennimadana waxa aan sameyn doonaa insha Allah barnaamij kale oo ugu talagalnay dhammaan shacabweynaha reer Somaliland ee ku dhaqan Stockholm ama dhammaan dalkoo dhan inay ka soo qayb galaan meesha aan ku qaban doono haduu la helaadana waa halkan meesha aan taaganahay xaafadan shista anigoo ka tirsan oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud maanta waxa weeyaan waxa loo taagay waa qarnimadii loo dabaaldegayo dalkana waa la wada leeyahay waana maalin farxada marka inagoo isku duuban ahaw waxa doonto ahaw laakiin muwaadin Somaliland waana ka soo qayb gashay oo tibada shista tareef waana mahadsantiin gacmo furan ku soo dhawaada mudaharaadkana waa inaad timaadaan min Toriyad habeennimadan halkan ee xaflada ka dhacaysa waxay noo iman doona wasiiro iyaguna martii noo ah oo su'aalaha kala rigdoona inooga warami doona wadankii waxaan rajaynayaa inaad ciilaanka naadiyay maalinta 14 bisha aanu ku mudaharaadayno inaad ka soo qayb gashaan annagu haddaanu nahay xisbiga wadani waxaan u hambalyeynaya dadka reer Somaliland ee Sweden ku nool maalinta 18 May in ay u dabaaldegaan farax iyo wanaag ugu dabaaldegaan maalinta Isniinta oo mudaharaadkaas dhici doona inay ka soo qayb gashaan safiirka jamhuuriyadda Somaliland oo fadhiya wadanka Sweden ayaa mas'uuliyiintaasi xasuusiyay in la gaaray waqtigii laga tagi lahaa danta gaarka loona midoobi lahaa danta guud ee qaranka meel looga soo wada jeedi lahaa xuska ballaaran 18 May sida mas'uuliyiinta xisbiyada qarameed ee xisbiga wadani xisbiga Ucud iyo maxay ururada bulshada oo ay hogaaminayso dalada guud ururka jaaliyadda Stockholm ee martida loo yahay ururka badda cas
ururka qoraaga maanta waxa aan dareemayaa runtii midnimo ummadii Soomaaliland ee reer Sweden ay muujisay farxad gaarana way ii tahay marka kulley fariinta ay soo gaarsiiyeen mas'uuliyiintaasi ee ah maalinta 14 bisha maxay aynu isku soo baxa sameeyna mudaharaad ma isku soo baxan ku muujinna qadiyadeena inaan culays saaro oo isku maxay waqti siino 4 saacadood iyo arrinka habeenimada ka dhacay ee aynu maxay markaasi wasiirada iyo madaxda qaranku ilaa 4 wasiir baa inoo imanaya aynu halkan maxay ku kala xog qaadanayno runtiina maxay waa madal u furan qof kasta oo Soomaaliland oo kula garnaqsanayo oo wax weydiinayo oo qarankiisa ku dhistoona habeenka marka muwaadin nagala qayb qaado dhismaha dalkaaga muwaadin nagala qayb qaado xoojinta maxay qarannimada anaga ka safaaradaha waxaan dareemayaa maanta inaan aqoonsigiiba sidano maadaama aynu halkan ku wada dhannahay runtii farxad weyn baan ay tahay oo runtii emotional baan noqday aad iyo aad Soomaaliland ha noolaato guul أحمد سكي داير حسن ورباهنتا قرنك الصوماليلان مقالة مدحة ودن كيسودنا ستوكهولم